وهاجا dhageystayaal markana Soomaaliland iyadoo gobolka saaxil ay jamhuuriyadda iskada ugu dhawaaqday madaxbannaanida Soomaaliland uu ka socdo sahan dhinaca shidaalka oo ay wado shirkad Shiineys ah ayaa wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal wuxuu shaaca ka qaaday in haatan ay soo ilaatay sahmintaasi shidaalka ee dhammaan gobolada Soomaaliland oo socday dhowrkii sano la soo dhaafay wasiirka waxa kale uu sheegay in ceelka ugu horeeyay ee petrol ah laga qodi doono Soomaaliland sanadka soo socday 2019 wasiirka ayaa hadaba arrimahaasi waxa uga waramay wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Axmed Saciid Ciige waxaa ka socday dhowr mashruuc oo baaritaan laga baarayo shidaal Soomaaliland marxaladihii baaritaanka ayaa qaar soo gabagaboobeen sida shirkadda Ganeel oo afar gobol oo ay ka mid yihiin Saraar, Togdheer, Daadmareed, Deebankadley ilaa iyo Belegubadle ayay soo gabagabeeyeen baaritaankii kan dhulka la gariiriyo waxay ku maqaayeen ka tarjumaadii daatada ay qaadeen waxay sheegeen in ay aad iyo aad rasho wanaagsan u leedahay marka rajada ma petrolka waa shidaalka weey gaas ku jirta iyadu waxa weeyaan waa naafto iyo petrol imaka gobolkan saaxil berbera watan qaybo badan ay baarayaan oo shirkad Chinese baaraysan maxay tahay Chinese contract bay qaadatay laakiin shirkadda ay u shaqeynaysa ee hawshalii waxa weeyaan wax la raagas oo waa Imaaraadka dawladna subcontract ku qaadatay shirkadda Chinese-kii iyaduna shidaalka ay ka baaraysaa saaxil bari dhawaan waxaad sheegtay in wasiir in masalan shirkadahan baaraya waxyo shirkadahan kale muddada dhowrtoonka sanadooda ugu dambeeyay baaritaanka kooday Soomaaliland in ay shirkadda Ganeel oo kale ay bilaabayso ceelkii ugu horeeyay bal arinta faahfaahinaysi waxay shirkadaasi soo dhameysay marxaladda hore ee baaritaanka oo ah baaritaankii ugu weynaa Afrika 3500 kilomitir ayay baadhay dabadeedna marxaladda hore waa laga soo gudbay marxaladda ku xigta waxa weeyaan in ceelal la qodo marka sanadka 2019 ayay ka taagayaan ceelka u horeeya goobihii ay shidaal ka baadheen waa sida ay iyagu sheegeen halkan noogu yimaadeen saraakiishii sarsare ee Ganeel Hargeysa yimaadeen aanu saragnay madaxweynaha ay arkeen waxay noogu bushaareeyeen in sanadka 2019 gudihiisa ay ceelkii u horeeyay ka taagayaan Soomaaliland waxaad ogtahay in aan la ictiraafsanayn marka wadigan arko berberadan DP weel iyo saldhigga iyo wadiga arko in buuq baa jiray marka rajayntii laga ku qabtaan inaan tan lafteeda aan carqalad ku iman filmayeen carqalad ku imaanayso haday ku timaadana cidii ku keentay iyada ku jabaysa waxani waxa weeyaan horumar waa ummad dhaqaale loo raadinayo ummadeena Soomaaliyeed ceelka ka soo baxa maanta berbera iyo saaxil waxa ka dhirgeeya oo ku noolaanayo ka faa'iideysanaya waxa la leeyahay waxa Soomaali afkeeda ku hadla way dhaafaysaa oo Afrika galaysa waxaad la socotaa Saciidow shidaalkii laga helay Saudi Arabia magaalooyinkeena ay noo dhisan inta badan waxa laga dhisay shidaalka ceelka laga helay Saudi Arabia laakiin mararka qaar koodna waa dadka South Sudan waa dadka Nigeria Afrika marka la eego dhibaato buu kana wada shidaalka waa hadii aan maamulka la hagaajin anoo waxaan ku kalsoonahay oo isku ognahay oo siyaasadda dawladdu ku dhisan tahay oo aan ku shaqeynayna in nidaamka soo saaridda shidaalka uu noqdo maamul daahfuran maamul laga wada faa'iideysanayo deegaanka laga soo saaro iyo gobolada wadanka iyo qaabka loo qaybinayo khayraadkaas ka soo baxa wadanka sida loo wadaagayo inay daahfuraato dadkana ku filaato loona kala badsado si xaq loogu kala leeyahay maamulkaas ay wax walba ku xiran yihiin ilaahay waxaan ka baryaa mid khayr qaba inuu noqdo aan niqmo noqdo nicmo inoo noqdo dhamaanteed